بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع آن رملينا كهذا النوع وموضوع كساب سن عقيدة لا إله إلا الله وأساس العقيدة محايا لي لا إله إلا الله ومفتاح الجنة. لا إله إلا الله إلهي أيدا درادد أيو أركي لكو أبوري. لا إله إلا الله درادد أيا إلهي سبحانه وتعالى دتك أبوري. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لا إله إلا الله درادد يا إلهي كتبت أسودجي. لا إله إلا الله درادد يا إلهي رسوش أصدري. لا إله إلا الله درادد أي دتكو لبأ قيب سمايا فريق في الجنة وفريق في السعير يوم القيامة. مركي الدنيا جوغانا شقي وسعيد أي قيب سمايان ومن أجل لا إله إلا الله. مركا إخوة الكرام، التوحيد أولا، يعني التوحيد كأوه الرأي وحولبا مركا لبرنا هايو أو علم لبرنا هايو وإن توحيد كالله هرمريا وأن إلهي لبرتا سبحانه وتعالى أولا. لذلك الله حليه فاعلم أنه لا إله إلا الله وررت قرأ أو لا إله إلا الله كلمة داس إيا وحي حنبار سنتهي أو علمئة أو عملئة إيا وحي كينيسي إيا وحي ديديسو ورت كلمة دا برو مركا وحبرانيسد توحيد كاتك بالله لا إله إلا الله. مركا ربتددين هذا وحي أشيكتد oo diinta aad faafisid waxaad ka bilaabaysaa tawxiidka laa ilaaha ila allah. lidaalika nabiyu sala allahu calayhi wasalam suuradihii ugu horreeya soo degay waxay ahaayeen yaa ayuha almudathir qum faandir warabbaka fakabbir wathiyaabaka fatahhir warrijza fahjur. asnaamta na ka fogow. markii aad rabtid inaad dad dacwo gaarsiisid waxaad ka bilaabaysaa laa ilaaha ila allah ayaa dadkaa baraysa ood macnaheeda fahamsiinaysaa. nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii fi saxiix ku qoraa ibni cabbaas xadiidkii mucaad bni jabal ana nabiy sal ly salam wuxuu ku yidhi innaka ta'tii qowman ahla kitaab, qole ahlu kitaaba ayaad u tegi doontaa. dacwa loo diray. markaad qoladaa u tagtid waxaa ugu horeysa oo aad kala hadlaysid oo aad ka bilaabaysid dacwadaada ha ahaato falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu llah fainhum ataacuu lidalik hadday arrintaa kaa yeelaan kadib faaclimhum ana allaha qad iftarada calayhim khamsa salawaatin tufradu calayhim fi lyowm walleyla uma azaka wahaakada. waxaa ugu horeeya ikhwat alislaam waaliimaan qofkii raba inuu dad dacwo gaarsiiyo ama dad diin u sheego laa ilaaha ila allah inuu baro dadka macnaheeda iyo waxay keenayso. sababta sidaas ay u noqotay liannahu waa asaasu lislaam, liannaha waa ruknu alawal min arkaan alislaam. waa wixii islaamka lagu soo gelayay haddii qofka laga waayana uu islaamka uga baxayay. waxay saa u noqotay lianna ayuha alikhwatu alkiraam waxaa jira kelimadan ama tawxiidku qofkii uu ka leexdo ama uu ka qaldamo ama uusan u toosinin qofkaasu khatar weyn ku sugan yahay. yacni yowma alqiyaama waxa uu noqonayaa dadka ku waara naara jahannam ciyaadan billahi min dalik. ilaahay wax walba dadka waa u dhaafaa ilaa sayi-adaas maahan. waa sayi-a aad iyo aad weyn oo ah sayi-at shirki. qofkii sayi-atu shirki ay gasho qofkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ma cafinaayo mana daynaayo jannadiisana ma gelinayo. isagaa wuxuu yidhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa. qofkii wax kale ay ka qaldamaan, qofkii macsi ku dhaca, qofkii gafa, ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u dembi dhaafa. laakiin ninkii ilaahay subxaanahu wa tacaala shirki la yimaada ee ku dhinta ilaahay subxaanahu wa tacaala ma daayo. qofka ilaahay uma naxariisto.
qofka waxa uu geliyaa naarta, jannadiisana xaraam ayay ka tahay qaطcan. qaanuun ilaahay uu dejiyey, qofkii towxiidku ka qaldamo ama towxiidka gafa inuusan ilaahay jannadiisa gelinayn abadan. walidaalika ayaa allah subxaanahu wa tacaala qur-aanka oo dhan waxa uu ku saabsan yahay kelimadda caqiidada ah iyo sixitaankeeda. markii maka la joogay iyada ayaa laga hadlayay 13 sano dadka waxaa la barayay kelimatu tawxiid. markii madiina la yimidna lagama tegin, markii jihaadka lagu jiray lagama tegin. aladiina ukhrijuu min diyaarihim bigayri xaqin ila an yaquluu rabbuna allah. yaa ilahi subxaana wa tacaala waqtigii jihaadka markii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sii baxayo hijroonahayay, caqiidada siduu u sugahayo ina allaha macana ayuu leeyahy abubakar markii uu cabsaday oo yidhi waana la helay, waxa uu yidhi laa taxzan ina allaha macana. nabiga calayhi salaatu wasalaam her iyo habeen ummadda waxa uu ka dhisahayey oo ka toosinahayey waxaa waaye caqiidada. ummadda hadday caqiidadoodu toosto wax walba u toosahaya. qofka cibaadadiisa toosaysa, qofka camalkiisa ayaa toosahaya, qofka kalsoonidiisa ayaa xoog yeelanaysa. allah ayuu subxaana wa tacaala ku kalsoonaanhaya. waa qofka markii caqiidadiisu ay xoog yeelato. qofna ma dhihi karo dadka muslimiinta ahi uma baahna in baabkan loogala hadlo ama lagu xeel dheeraado, amase maadaama dadku muslimiin ay yihiin. kelimadaasu sax maaha. nabiga calayhi salaatu wasalaam bayna ansaarihi wa asxaabihi, isagoo madiine la jooga ansaartiisa iyo asxaabtiisa ayaa waxaa soo deganayay qur-aanka caqiidada ka hadlahaya oo yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu billaahi wa rasuulih. dadka muuminiinta lala hadlaya. dadka muuminiinta ahu ilaahay subxaanahu wa tacaala rumeeya, si fiican u rumeeya, si fiican ilaahay u rumeeya. qof kastoo muslima waxaa la gudboon in uu ku dadaalo sida uu isaga sixi lahaa ama isaga hagaajin lahaa caqiidadiisa. waxaa lianna hadday kaa hallawdo caqiidadu khatar baad ku suganta. allana subxaanahu wa tacaala dadku dadka ugu jeclaa oo ambiyadiisa ah ayuu uga digayaa inay kelimadaasu ka qaldanto, inay shirki meel ka taabto oo ay shirki ku dhacaan. walaqad uuxiya ilayka wa ila aladiina min qablika, ambiyadiyaa loo jeedaa. walaqad uuxiya ilayka yaa rasuula allah, adigaa lagu waxyooday. wa ila aladiina min qablik, kuwii kaa horeeyana waa loo waxyooday. maxaa la yidhi? lain ashrakta layaxbatanna camaluk walatakuunanna min alkhaasiriin. haddii shirki uu meel kaa taabto, horta camalkaagu waa baaba, waa kuu dhammaata. waxaa kaloo kaaga daran walatakuunanna min alkhaasiriin. qofka la tahdiidhayaa oo laga hadlahayaa oo khitaabku uu u jeedaa, inkastoo khitaabku ummadda dhan, khitaab nabi sal slam khitaab liummatihi waaye, laakiin allah nebigiisa ayuu sidaa kula khitaabahay. walaqad uuxiya ilayk wa ila aladiina min qablik lain ashrakta layaxbatanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin. aayadaha ku jira suurat lancaam waa aayad cajiib. ilaahay wuxuu tirinhayaa ambiya aada u fara badan oo 17 nebi taqriiban ayuu ilaahay isdaba xijiyey. 17 nebi taqriiban ayuu ilaahay subxaana wa tacaala magacyaalkoodii sheegay. waxaajahu qowmuhu qaala atuxaajuunii fi llahi waqad hadaan walaa akhaafu ma tushrikuuna bihi ila an yashaaa rabbii shay'a wasica rabbii kula shayin cilma afalaa tatadakaruun wakayfa akhaafu ma ashraktum ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وحنصص على آياتها ذنبه. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين لقى مهر ومن آبائهم هذا فربضنا أنبياء وذرياتهم أيونا فربضا
وإخوانهم ولا لهد واجتبيناهم ضدك والدورنا وهديناهم وعن كهنوني إلى صراط مستقيم مركز إلهي وحي مركي آياتها اللي سو شيغي اللي يركوها اللي سو شيكي ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون انت اللي سو شيغي مid kamida إلهي أدورتي إلهي أجعل هذا mid kamidih hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala shariik u sameeyo laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun wixii ilaahay agtiisa ay ku lahaayeen dhawaanshihii ilaahay agtiisa ay ka dhawaayeen khaliilullah iyo dadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala u jeclaaday nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam khaliilu raxmaan ibraahim nuux ululcasmi min arusul kulli waa ku jiraan dadkaasi hadday shirki ku dhacaan laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun إبراهيم عليه الصلاة والسلام سو مدها يا سو واجنبني وبني أن نعبد الأصنام سيك عرها حولي نسلك كمذا هدو إبراهيم سا وبقى هيو شركي عدة شركي كنبت جليسة هي حقي جوكتا أيها الإخوة الكرام عقيدة ميل كستوى جليسة ميل والبنا واسامين ليسا زمن كان هذا اللي جوغنا وحواي وحوال بواسود واسلح جلي qofka nabadgelaya waa qof caqiidadiisu ay sugan tahay haddii kale daadka ku qaadahaya fitankan ayaa ku qaadahaya allatii tamuuju ka mawji lbaxr yacni hirarkan fitanka ah oo sida badda hirkeedoo kaleeta ah ayaa ku qaadahaya nebiguna wuu sheegay calayhi salaatu wasalaam inay aakhiru zamaan ay dhacayaan fitan waaweyn oo yusbixu rajulu mu'minan wa yumsi kaafiran ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وفتن الله سبحانه وتعالى الله نجنا بدل وحيلها ما أنت مقليسي أو لليه مثلا دينته هيسوس دواتو ديمه جرا هيسوس دوادا وأرن عقيدة هذه أن مال ودع دينته هيسوس دوادا ضدك ديانته يا الولاية هل هيسوس دوادا معناها وحواي شركي إيو إسلامكي هل يسكو كانوا هل يسكو سلوه وحال ليه حرية الاعتقاد أي عالم أقوليه قف البوح الدانو أيو عقيدة يسنكرا هدور وقفنا عقيدة ديسن لما دحق لك رو وحاول ربا أيو شيكا هذا تصدق من سنتهي خطرت كسو انت وحاليا حرية الاعتقاد مجرى وإسلام هي باطل ومسلم هي غير مسلم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الله سبحانه وتعالى عدن قيامتك نوم إلهي وقلنا بدقلنا يا كلمة التوحيد أو خالصة أو صحيحة أو أركان تيدا وضطة أو ليسك إلالية وحيالها برناية أو بابيناية على غير بقفكم هدوسا إلهي إلالي علمي اسكو إلاليان وسن هيني إنه مالنتي انت صمر إسلام كقالو هدنا كبحو سوون إسوغين إنه إسلام كمرنا قالو مرنا وكبحو أو وحو لا إيمان هيا وحيا ربضا أو إسلام كبورية أو بابية أيو كين هيا مركا وحي نقنيسا إنه إسلام كبحو ساس درادد يا وحلو باهيا إنان بابك حوغ سارنا هدان وحبرانا ينو haddaan wax isu sheegayno haddaan muxaadaraad dhiganayno waa in aad iyo aad baabkaasaan ugu dadaalna waxaan la yaabay qur-aanka haddaad akhrisid waxyaalo cajiibaa kuu soo baxay ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka uu abuuray waxa uu u jecel yahay oo ugu dhow oo u jecel yahay allah subxaanahu wa tacaala waa ambiyadiisana nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ugu horeeya waxaad arkaysaa isagoo nabiyullaahi maxamed ilaahay inta wax ka doonay oo shafeeco qaaday loo diiday hal qadiyaday dhacday qadiyadaas waa qadiyada ah الشرك قف شرك قالي أيوه النبي عليه الصلاة والسلام وأذيركيس أبو طالب أو أجعلا أو وحبذا أقبتي أو قرب الساقي أيوه حس كده يمركو لمن هاي إن ما إسلام قدمته ودعوا إليه
rabbi subxaana wa tacaala ma qorin markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu damcay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u baryo markaasaa la yidhi maa kaana lilnabiy والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما جرت كان أذيرك هواي لكن وحواي وكل انتي شركي قف شركي كل انتينا جنة إلهي لويس مجرنا ولو ديلي وهذا يعني شركي وماشو الله أكتيس سبحانه وتعالى كجو نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله خليل الرحمن نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام سونا واتقرن إسلام أبيز يوها آزر انتو أدوك جوي آزر إن بدنوا دعوة لدول استاقي عسى ولعل إله سبحانه وتعالى هنونيه ودين تقاته دين إنو قاتل أركاي واكير يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا لكن آزر وادي حورك يقفوا يا ما حضرت أنا مارتي دينتي دي وحي يقف السهادس وأوكتلي مركو دنتي نبي الله إبراهيم أبيس أيا إلهي سبحانه وتعالى أيا وبري ماركت إلهي سبحانه وتعالى أي مقرن اسمه لكن وحال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وحاسة قدر انتهاس هذا أدونك وبس حالة سياسية لكن ملك القيامة لتها أيها وحاسون هذا حديث صحيحة إن نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولكل ما أبيس وكل ما يوم القيامة سوى حالة دي سؤال ليدته أو أي غبرة كموقته يمرق مقرنيسا وجهيسا أي لباتا كموقته مركز ويري إلهي بمركبري وحوري يا ربي واتتري ولا تخزني يوم يبعثون واتنا دونك كابر يودقيش لكن خزيك كوين محوية إن آبهي لعذابه والنار تقوكره آبهي النار تقوه خزيك كوين محوية مركا حديث قواد راي لكن آخر يسوحوها إنه إلهي سبحانه وتعالى كديدي أرنتها ويري إنها الجنة حرمت وحان كحرم الجنة قفكي الله سبحانه وتعالى شريك ويالي أيان كحرمي جنة وحان كحرمي مركا وحا حديث وحا لي هوس فيري مركا مركو فيري وحا أركي ضبع يعني نوع كميدا حيوانك أو ويرك أو كاليتا أو مارتي ديك iyo maartay boor iyo wax maartay la gowracay camal ayuu arkay yani weerkaas oo kale ayuu arkay marka waxa la yiraahdaa ilaahay wuxuu ka asuray in aabihiiso sidiisa naarta la galiyo ama lagu celiyo waxa la tusay weerkaas ba yani ilaahay baa wuxuu tusay inuu waxani weer oo kale maartay yani dugaag oo kale ayaa la tusay marka waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala wana xariisanay taqriiban inuu أبيس سوسيسة لكن الله سبحانه وتعالى وأكدي شفاعة نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبيس وشفاعة ساز درادة أيو عقيدة وحي نغطي أيها الكرام هي القضية الأولى قضية وجوه الرئيسة أم برانينو قضية وجوه الرئيسة سوانينو قضية ugu horeysa oo aan dadka u sheegayno oon gaarsiinayno waxa ay noqotay caqiidada saasaana loo baahan yahay qof kasta oo diinta ilaahay raba inuu barto ama dadka gaarsiiyo inuu maaragtay
inuu caqiidada inuu xoogga saaro inuu caqiidada xoogga saaro ayaa loo baahan yahay sababtoo ah waa ruknigii koobaad ee islaamka laa ilaaha ila allah ayaa islaamka lagu soo gala ummad badan oo muslimiina oo aabahood muslim ahaa oo islaam ku dhalatay maanta haddii la yidhaha laa ilaaha ila allahu macnaheedu maxay tahay ma yaqaanaan saxiix waay ma yaqaanaan ninka ugu badan wuxuu leeyahay ilaah maahane ilaah kale ma jiro ilaah kale ma jiro wa hada gayr saxiix waxaa lagu leeyahay waa jiraa nasaaradu ilaahay leedahay yahuuddu ilaahay leedahay buudiyiintu ilaahay leeyihiin qof kasta ilaahu leeyahay marka macnaheedu hadday doonto sax ha noqoto laakiin waaqica haddaan ku dabaqno laa ilaaha ila allah waxaa waaye ilaah maahana ilaah kale ma jiro sax maa haddaad tiraa laa macbuuda ila allah mid la caabudo ilaahay ma jiro lagaa yeeli maayo dad kale wax caabuda marka waa inaad tirahda laa ilaaha ay laa macbuuda mid la caabudaa ma jiro bixaqin xaq lagu caabudaa ma jiro ila allah saas waana qayda mid xaq lagu caabudaahi ma jiro way jiraan kuwo kaloo la caabudo laakiin kulli xaq maaha waxaa u daliila dalika biana allah huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min duunihi albaatil waxaa ilaahay ka soo haray waa baatil wa ana allah huwa alcaliyu alkabiir laakiin way jiraan oo way joogaan oo ummado fara badan ayaa waxyaalo kala caabuda qofka haddii caqiidadu ka qaldanto waa mashaakil hadda ka horan waxaan maqlay kuwa meel ku sheekaysanaya ayaan ag maray addis ababa markaasi waxay leeyihiin dumaray u badan yihiin kuwaana waxay leeyihiin annagaa saxa annaguna waxaan leenahay annagaa saxa wax saxa ilaaha og saasay leeyihin caqiida dhaba ma jirto kuwaanina masiixiyiinta halkan joogaahuna annagaa saxa ayay leeyihiin annaguna waxaan leenahay annagaa saxa wax saxa ilaaha og heerkaas ayaad gaaraysaa marka dambe haddaad heerkaas gaartid waxa waaye waxaad ku sugan tahay iyo waxaad haysatid midna ma saas daraaddeed ayaa ayuha alikhwatu alkiraam ayaa waxaa lama huraan ah qadiyaddaas ood og tihiin inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala rusushoo dhan daraaddeed u soo diray walaqad bacatnaa fi kulli ummatin rasuula maxaa lala soo diray an icbudu allah ilaahay caabuda wajtanibu taaquudna ka dheeraada rususha waxa loola soo dirahay kelmaddaas ayay ahayd wamaa arsalnaa min qablika min rasuul ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun arrintu arrin sahlan maaha arrin fudud ma aha kelimaad afka laga yiraahdo ma aha waxay xambaarsan tahay macaani aada iyo aada u weyn bay xambaarsan tahay qofkii laa ilaaha ila allah runka sheegaa noloshiisa dhan way bedelaysaa noloshiisoo dhan ayay bedelaysaa qofku wuxuu la cibaadaysan layahay waa kelimaduusan aada run uga sheegin qofku wuxuu macsida ugu dhachayaa laa ilaaha ila allah yuusan runka sheegin sababtu maxay tahay laa ilaaha ila allah dad runka sheegaysid waxaad ogaan lahayd inuu ilaahay kuu jeedo an tacbud allaha kaannaka taraa fain lam takun taraahu fainahu yaraak haddaad taas kelmaddaas aada og tahay ilaahay macaasinaysa sidqan meeshaan kaamiraa ku rakiban kaamiradaas intayna hayso qof qalad samayn kara ma jira haddii ay laba yidhaahdaan waxaa waaye waxaan samaynaynaa ficil xun oo ma garat qofna ma sinaysan kara ayadoo kaamira hayso ma samayn karo ciyaal suuq kasta uu yahay kaamiraana haysuu leeyahay inay khafi tahay anugu ma ogin kaamira ayaana haysa waxaan ma samaynayn marka haddaad og tahay kaamiradii bani aadamka kaamira ka weyn inay ku saaran tahay oo tii rabbi ay sidaa kuu hayso waxa weeye macsida waad iska ilaalinaysa ma samaynaysa macsida ma samaynaysa waa tii nabiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam uu gaaray markii haweentu ay doontay walaqad hammat bihi oo ay tiri maaragtay tafadal markay tiri waa kii diiday kadalika linasrif canhu suu'a
والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وحودي لي وحوجي إن الله سبحانه وتعالى أطال عنايه وحا صحيح أهين رواية دهيسة نبي الله يوسف وحا أركي أبيهس أو فيرنايا أو لا يوسف ولي بقعنت قنينسا فرتساء قنينسا أو ده يا يوسف ما واحد ربطها إن هذا واحد سميس المية ربطها صح معه وحا صح يوسف كمان بغن نظر ذا إلهي الله نظر ذا يوسف يعقوبنا ما شاء الله إيمان وحا كبقي نظر هذا الرب سبحانه وتعالى إلهي أيو إلهي marka haday caqiidadaadu xoog leedahay oo caqiidadaadu ay sugan tahay macsiyadaadu way yaraanaysa dambigaagu aad u yaraanahay lianna waxaad ogtahay allah subhanahu wa ta'ala inuu ku daalacanahay taxarukaadkaaga sakanaadkaaga wax walba sameynaysid allah kula socda saas daraadeed ayaa waxa isbedelahaya noloshaada fiqadaada isbedelaysa qofka kale hammi iyo xusni iyo mustaqbal laga cabsado ayuu ku sugnaanahay laakiin haddaad ogtahay allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku qoray inaad seegaynin xaraamna raadimaysid xaraam ma raadinaysid inna nafsa lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha haddaad rumaysan tahay fattaqullaha wa ajmilu fi talab xaraan ku cararimaysid xaraan ku cararimaysid kalsooni ayaad helaysaa wixii ilaahay ku qoray waad helaysaa wixii maanta ka maqan bari bay ku imaanayaan allah ayaad ku kalsoonta allah ayaad ku kalsoonta marka fiqadaada isbedelaysa cibaadadaada isbedelaysa allah ku xiraanaysa bini aadamka ayaad baabkooda laabaysa allah baabkiisa ayaad u jihaysanaysa waa marka caqiidadaadu ay fiican tahay waa markaad ogtahay dadkoo dhan الله سبحانه وتعالى وحسي معنا إني أنا وحكي هلين ومركز لا سعتي عدي وحكسيسا الله كوسو ديبي أو كسو أمري معهنا يدو إن أنا وحكسيني وأنا تساس الأصعد مركز إخوة الإسلام والإيمان مسألة عن حق سارنا سي نرش إنه اسكو بدشوا عبادة إنه اسكو بدشوا النشاط عنه هلنا عبادة عنه هلنا عمل كأنه اسكو بدره يوم القيامة أنا نقولنا إن شاء الله من الآمنين عمل كانوا مقبول نغضه وروح والبول سمينه قال ذو وحول بيسميان هلال محلي هذا الصليب الأحمر الدولي وفلان وعلان أعماشها كل قد حلق قاعدا معي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا محادي لي إن عمل كذا وحلق قاعده إن عمل كذا وحقون له حسابيه وحادي لي كلمة الشرك ما الشرك بيكجران وحيان إلهي وحن لو رجيدنا إلهي ما أقبله عدي بن حاتم إنك يا حاتم الضائي ياك كرم بدنا مرك النبي لو يدي وحيره أرمك لو نكاس السعودي أرمه السعودنا واهلي مرك الله أكتيسه حبكم لها مرك هدي عقيدة إنه إهجاجته إخلاص كنا هجاجية عمل كنا إلهي سبحانه وتعالى أقبلها هي هدي كله وحان نقولنا دد دالاية أو ما قرنيسا شقيناية لكن شقدوا أي نقطه هباء منثورا ملاينا هيا إني وحاجاجين هيان وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا إني وحاجاجين هيان لكن ددا وحبها جاجين وحودنا وحبك جرين إذا عقيدة أول عن عقيدة بالله إنه شيء كستا تعليمته عملك دعوة وحبرشدا قرآن كودن من أوله إلى آخره وحوك هذا الآية عقيدة إلهي إلا كلييرا ذاتك كلييرا وحي إليهين الدنيا ذا إيا وحي إليهين آخرة ذا إيا ذاتك الديدا وحا أي متيسنيان الدونك إيا وحي متيسنيان آخرة ذا قرآن كنت سيوك الشكين هيا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلى الله وسلم على محمد جزاكم الله خير.